وزير gaashaandhig wuxuu yiri qof xamar qora ku qaadan karta male on behalf the wasaaradda gaashaandhig aan ku hadlay wasiirku waxaan u maleynayaa xafiiska personal oo ku shaqeeyo iyo xamar isaga tarantaan u maleynayaa waa run xafiiskiisa qofla lama geli karo kiisa aan ahayn laakiin magaalada muqdisho wasiirku ammaankeedana ma sugin ha yeeshee kaba mid maaha hay-adaha ammaanka u xil saaran wasaaraddu ka mid maaha wasaaraddu hay-adaha ammaanka reer sugan wasaaradda gaashaandhigga iyo wasaaradaha kaleba waxay ka mid yihiin wasaaradaha ammaanka reer sugan waa ixtiraameynaa hay-adaha ammaanka u xil saaran iyo ciidamada ammaanka waa ixtiraameynaa waa ku garab taaganaha shaqada ay noo hayaan bulshada Soomaaliyeed u hayaan waxaan ixtiraameynaa sharci rasmiya oo yani amaankii waa la sugay qatarina ma jirto qof kastoo Soomaaliyeed ah wixii soo gaara annaga ka mas'uula haddii dawladdu tiraado oo ammaan caynkaas oo la isku halay karo ay keenaan dadka ugu horeeya u baahnaan laakiin ammaankaagana sugi ma karo saaka ugu dambaysa waxaan maqlaayay qarax meel ka dhacay oo magaalada ka mid mararka qaarkood waxaa isxabaday ciidamadii dawladda sida habeen dhaweed dhacday meel lagu caweynayo ciidamada dawladda isku dileen marka xaaladda halkaas taagan ninka dhahayo hub lama qaadan karo asaguna awood uma lahayn oo sheegtay hubkana xiiso looma qabo ammaanka lagu sugaa qof kastana ammaankiisa wasiirka kamid ah cidda hubka wadata wasiirka afar wiil oo adeer u yahay baawarka u saaran marka suguna wiilasha adeerku yahay baawarka saarto qoran lama qaadan karo yiraahdo aniga kaliya wadanaya ammaankana sugi ma karo waxaan isku wareejinayaa dhagxaan iyo bullet proofna waa ku soconaya wasiiru taasi waxay la tahay hadal miisaankaaga aan ku habboonayn oo daahdo noqonaya wax inta ka badan ka dhihi maayo